ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday bar control oo ciidamada ammaanka ay ku leeyihiin agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa dhacay maanta oo Arbaca ah xil musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha ay ku sii jeedeen garoonka diyaaradaha ee aadka loo ilaaliyo si ay xildhibaanadu ula hadlaan ka hor maalinta Axadda ee codeynta madaxweynaha sida ay sheegeen booliiska Soomaaliya. Waxaan arkay 4 qof oo meyd ah oo goobta ku sugan. Laba ka mid ah waxay ahaayeen askar ka tirsan ciidamada dawladda oo isla markiiba ku dhintay weerarka, ayuu yiri Cali Xasan oo ka tirsan booliiska. Tiro dad dhaawac ah ayaa lagu qaaday gaari ambulance ah sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal. Ma jiro wax faahfaahin ah oo ku saabsan khasaaraha kale ee ka dhashay. Walaalayaal, sidaan hore idinkaaga ballan qaadnayba wixii akhbaarada oo ku saabsan qaraxa maanta ka dhacay lambar 4 waan idiin soo gudbin doonaa. Halkaan waxaan digniin uga farayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, gaar ahaan Muqdisho, in ay ka feejignaadaan qaraxyada maalmahan soo socda sababtoo ah maalmahan waa xilli kala guur ah. Siyaasaddu way qasan tahay, ma fiicna. Marka waxa loo baahan yahay qof walba inuu ka fogaado goobaha qaraxyada lagu tabayo. Mar walba waa inaad ka ag dheeraato goobaha shirarka ee ka dhacayaan sababtoo ah waxyaabo badan ayaa jira aad idinka la soconina. Siyaasadda ma fiicna, walaalayaal ka fogaada.